asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada dhammaantiin fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir maanta waxaan ka hadlaynaa shilkii gaari ee sababay in talada dalka ay gacanta u gasho dad aan ahayn madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad barre kadib markii madaxweynaha uu galay shil gaari oo la sheegay in xaaladda caafimaad ee maskaxda ay saameyn ku yeelatay taasna ay keentay in xukunka ay la wareegaan dad aan sax ahayn oo madaxweynaha awooddiisa ka faa'iidaystay taasna ay keentay burburkii dalka taariikhda soomaaliya waxaa ku jira dhacdooyin badan oo bedelay jihada dalka mid ka mid a dhacdooyinkaas ayaa ahaa shilkii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad bare kaas oo dhacay bishii meey inkastoo soomaaliya xilligaasi ahayd dowlad adag oo awood leh shilkaas waxa uu noqday dhacdo weyn oo saameyn ku yeelatay hogaanka dalka siyaasadda gudaha iyo mustaqbalka dowladdii militariga ahayd ee hogaami jiray jaalle maxamed siyaad bare haddii shilka ka hor xaaladda soomaaliya sida ahayd ba aan ina xasuusiyo markii uu siyaad bare talada la wareegay oo uu ku qabsaday afgembi kii waxa uu dhisay nidaam ku salaysan hanti wadaag iyo awood dhexe u xooggan dowladda ayaana gacanta ku haysay inta badan hay-adaha dalka waxaana jiray ololayaal waxbarasho iyo qorista afka soomaaliga oo aad u xooggan sannadihii meeyadiina dowladda waxay gaartay heer awood sare ah ha yeeshee dagaalka etoobiya ee dhacay ayaa si weyn u dhaawacay awooddii dowladda kadibna dagaalkaas waxaa ku bilowday dowladda mucaarad hubaysan oo dowladda kasoo horjeeday oo etoobiyaba ay ku soo rogtay ama ay maalgelinaysay kuwaas oo rabay inay dalkooda burburiyaan intaas oo dhan waxaa gacanta talada ku hayay oo qofka kaliya ee warkiisa la qaata ahaa jaalle maxamed siyaad bare madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya balse markii la gaaray dowladdu waxay ku jirtay xaalad adag oo ay wajahaysay kadib markii madaxweynihii xaaladda kala furfuri lahaa ee maxamed siyaad bare uu galay shil gaari meey siyaad bare waxauu ku safrayay meel u dhow magaalada muqdisho markii uu gaari ula socday uu galay shil culus wararku waxay sheegayaan in gaari kale uu ku dhacay oo uu hoosta ka galay kaas oo asna ahaa isla kolonyadii la socday madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya shilkaas waxaa ku dhintay qaar ka mida ilaaladiisii iyo saraakiil la socotay siyaad bare laftiisana waxaa soo gaaray dhaawac halisa gaar ahaan madaxa jirka iyo xabadka kadib shilka waxaa si deg dega loogu qaaday isbitaal dibadda ah gaar ahaan dalka sacuudi arabiya oo uu xiriir wanaagsan la lahaa jaalle maxamed siyaad bare halkaas ayaa la geeyey dhaawacii madaxweynaha oo muddo lagu dabiibayay laakiin maxaa dhacay sidiisaba madaxweynaha markii uu dhaawacmay waxaa la sheegay in xaaladiisa caafimaad ee dhanka maskaxda uu ka yimid isbeddelkaasna waxa uu sababay in runtii taladii dalka ay gacanta u gasho dad aan mudnayn muddo dheer dowladda soomaaliya si rasmi a uma shaacin xaaladda caafimaad ee madaxweynaha arrintaasna waxay dhalisay warar badan oo iskhilaafsan dad badan ayaa aaminsanaa in dhaawacyada madaxweynaha ee madaxa kasoo gaaray iyo midii xabad kasoo gaartay tan maskaxda intaba ay hoos u dhigeen awooddiisa siyaasadeed islamarkaana tan iyo markii shilka uu galay ilaa uu ka geeriyooday uusan ahayn nin talinayay oo dad kale ay talinayeen maalintii shilka uu galay waxaa istaagay wadaxaajuudyadii mucaaradka lagula jiray waxaa istaagay wax kasta oo dalka ka socday waxaa istaagay horumarkii waxaa istaagay taladii dalka waxaa istaagay wax kasta oo soomaalida faa'iido u lahaa inkastoo aysan jirin caddeyn rasmi oo xaqiijinaysa dhammaan madaxweynaha oo awooddiisa maskaxeed ay hawada ka maqnayd oo uusan waxba kala xasuusan haddana dadkii ka agdhawaa xilligaas waxay sheegeen in shilkii madaxweynaha uu ahaa saameynta ugu badneed ee keentay in soomaaliya ay burburto sidoo kalena in la duqeeyo dhanka gobolada waqooyi shilka kadib waxaa soo baxaya su'aalo badan oo ku saabsan cidda hogaaminaysa dalka saraakiil sare oo militariga iyo xubno dowladda ayaa bilaabay inay yeeshaan saameyn sii kordhaysay waxaa yaraaday muuqaalkii dhadhaaqyadii fagaara hadalkii iyo sidoo kale madaxweyne wuxuu ahaa nin inta badanba dadweynaha la hadla siyaad bare waxyaabaha uu soomaalida kale uga fiicnaa ama hogaamiyaasha kale ee soomaalida uga fiican waxaa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin aan ogoleen in asaga iyo dadka loo dhexeeyo siyaad bare haddii u rabo wax inuu sameeyo islamarkiiba dadka ayuu la hadli jiray dadka qaar waxay rumaysnaayeen in awoodda dhabta ah markii madaxweynuhu shilka uu galay ay kooxo danley ah ay si tartiiba ula wareegayeen taasna waxay keentay kalsooni darro siyaasadeed loolan gudaha ah
korarka mucaaradka hubeysan iyo hoos u dhac ku yimid awoodda dowladda dhexe. Sababta Siyaad Barre si adag ayuu ula dagaalami jiray mucaaradka sida la ogyahaaba. Dabayaaqadii 1980 sida ognahay waxaa kordhay jamhadihii hubeysnaa la oran jiray SNM, jamhadii kaloo la oran jiray USC, tii la oran jiray SSDF. waxyaabahaasoo dhan ayaa kordhay. Kooxahan ayaa dagaalo ka wadiyay qaybo badan dal ka mid ah. Qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa aaminsanaa in xaaladda caafimaad ee Generaal Maxamed Siyaad Barre, madaxweynihii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya, ay sababtay in jamhadahan ay helaan awood, sidoo kalena kooxihii awoodda sida qaldan kaga faa'iideysta ay dhibaateeyeen shacabka Soomaaliyeed ee ku noolaa gobolladii dowladdu ay xoog ku haysatay ay ku xoog badnayd. Shilka waxa uu saameeyey sidoo kale dhaqaalihii dalka. Maalgashayaal badan iyo dowlado shisheeye ayaa bilaabay inay ka walaacaan xasiloonida Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha maalgashiga, iyagoo sheegaya in runtii madaxweynaha uusan tali karin oo dad kale ay talinayaan, had iyo jeerna hantidooda ay ku jirto halis. Waxaa yaraaday maalgashigii, taageeradii dibadda iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda. Dhaqaalihii dalka ayaa marxalad adag oo galay, dowladduna waxayba gaari weyday inay wax kasta iska bixiso. 1988 ilaa 1990 xaaladdu waxay noqotay mid sii adkaanaysay, iyadoo Jaalle Maxamed Siyaad Barrena weli la sheegayo inuusan ahayn nin taliya oo maskaxdiisu ay caafimaad qabto. Dagaalo ayaa ka dhacay gobollada waqooyi bartamaha dalka, mucaaradka ayaana helayay taageero sii kordhaysa. Dowladda ayaa ku khasbanaatay inay xoog badan ku bixiso dagaalada gudaha. Waxaa dhacay sida aad ogtihiinba duqeyntii Somaliland ama gobollada waqooyi xilligaasi loo yaqaanay. Waxaa dhacay in dad badan oo shacaba magaalada Muqdisho lagu beegsado, guryahooda lagu tago. Arrintaas oo la sheegay in Jaalle Siyaad Barre uusan waxba ka ogeyn. Waxaa aad u yaraaday awooddii dowladnimada 1986 tan iyo markii madaxweynuhu uu shilka u galay. Waxaa la sheegay laba kooxood inay xukunka isku haysteen. Kooxo waxay ahayd kooxdii gudaha ee militariga oo doonayay inay qabsadaan xukunka. Koox kalena waxay rabeen inay runtii ay bannaanka ka yimaadaan oo ay talada qabsadaan. Kooxna waxay ahaayeen Siyaad Barre xigtadiisa ama dadkii ehelkiisa ahaa oo ayaguna isku dayay inay xukunka la wareegaan. Marka dowladdu waxay ku burburtaba xukunkii dhexdiisa ahaa oo dowladnimada Soomaaliya ee xukunka dhexdiisa ahaa. Marka dadka maadaama madaxweynihii xaaladdiisa caafimaad ay isfadhin, xukunkii ayaa laisku qabsaday. Arrintaana waxaan ka akhrinayaa buugga la yidhaahdo Suicide State ee Soomaaliya. Waa buugga falanqeeya dowladdii militariga iyo sababihii ay u burburtay. Waxaa la dhahaa Suicidal State ee Soomaaliya. Waxaa kaloo jira buug kale oo aan arrintan ka soo akhriyo asna la yidhaahdo Mountain Rebels in the Sky. Modern History of Somalia ayaa sidoo kale ku jira. Waxaa kaloo jira buug af Soomaali ah oo asna ka hadlaya siyaasadda la yidhaahdo halgankii iyo noloshii Siyaad Barre. Waxaana buuggaas lagu caddeeyey in Maxamed Siyaad Barre uusan runtii talinayn intii uu shilka galay kadib, laakiin ay talinayeen kooxo qowleysata ah oo dowladda ku dhex jiray. Arrintaasna buugga ayaa Suicide State in Somalia oo falanqeeya dowladdii militariga ee sababihii ay u burburtay ayay ku taallaa. Qofkii u baahan buuggaas ayuu tegi karaa, wuuna ka soo akhri karaa, wuxuuna ogaan karaa xogta saxda ah. Waad mahadsantihiin, waqtigiinana waan kaga mahadcelinaynaa.